ورلا يابلها كسو بحي مسجد كبركيسن الأقصى إله مساجد كاقبد بالي لماكي يهودا وحيلين تدك يهودا قدس جوغا مالنتاس هالله بلغو مساجد ومحلو بلغا ما يغا مساجد ما يغا اسكالي مسلمين ميا وابا يهودي ما كان يسدو تغال مساجد محا كربا إذا بدردو فيري وحي حدنا كليين وكد ما شاذينا لا حول ولا قوة محاو قد ما شاذي سانواي شن يطبان كمي بشان كون سقال بقول لحدن يتضبدي ومالنكي إسرائيل أي قبصتي مساجد كبركيسان الأقصى وبشان شن يطبان كذا إن الله فرو وأن كد بالدقنارنا مسلمين تأدون كأين أركان مسجد كودي بركيسنا إنان كفايستينينو هيسانو كصوب الله اللحدن يتضبدي إلى حد أنه أساس ويسنو وح مسلم وماشا ما كرون نجاك إنكرنا وسنجري الدنيا يوران مركا ورقة على صوص على وحلا وحن على قبض ضدك وحن صورة قلما ضدك دين تودي وحودي كنيسة هيستما كنيسة ودي تجا هذا فايستين يعني ما مجال قدس تأيجا هيستين بنا بحيا قصة ما يستان ما حيكربان مساجدك وحيكربان مسلم مال كسته uu joogo inuu maaratay uu ka xaraaqay ogi dhiga lagu karinaya adig xaqaadi kartaa lagu leeyahay marka waa ducaynayna oo tabarkala ma hayno ilaahay oo masaajidkaaga badbaadiyo ummadda muslimiinta adikuna soo duceey haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray xubno ka tirsan aqalka baarlamaanka kaniisadka iyo wasiiro xukuumadda Israa'iil ka tirsan ayaa waxay dalbanayaan in la furo masjidka barakaysan ee Al-Aqsa loona furo dadka Yahuuda ah si ay u xusaan sanad guurada markii ay qabsadeen masjidka barakaysan ee Al-Aqsa 13 xildhibaan iyo wasiiro 3 ah oo ka tirsan dawladda Israa'iil ayaa codsi u gudbiyay xukuumadda in 15 May oo ku beegan munaasabada maalinkii ay Yahuudu qabsatay masjidka barakaysan ee Al-Aqsa iyo guud ahaan magaalada Qudus 1967 oo carabta dagaalkoodii ay ku qabsatay in meesha ay ku farxaan oo ay ku dabaaldegaan waa musiibo masaajidka ku dabaaldegaynay kulay inaan muslimiintii ka adkaanay carabtii ka adkaanay masaajidkoodii haysano 15 May ayaa xusayna macnaha waa maalinkii ay qabsadeen masjidul aqsa 1967 marka hawshaas waa hawl iyaduna cajiiba waaye waatay qadar xayisiisa kadib waxaan u gudbaynaa wararkii soo dhacay